السلام عليكم kulanti habboon daawadeelid lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataa qaybtii 16aad ee taxanaheedii ayaan daran sheekadan waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag qaybtana waxay ku bilaamaysaa sidan galabtii dambe asli oo wiilkeedii nuujinaysa ayaa waxaa u soo gashay Canab markay muddo wada joogeenna waxay uga sheekaysay rag ay israaceen iyo wixii ay kala kulantay Canab waxay dareentay in saaxiibadeed aanay war niyad u hayn lana socon sheekadeeda markaasay mowduucii oo dhan bedeshay iyadoo asli ka warsanaysa xaalkeeda iyo waxa ay damacsan tahay asli waxay u sheegtay Canab in walwalka ugu weyn ee haystaa uu yahay sidii cunuga ay u korin lahayd gurigana kirada isaga bixin lahayd Canab oo garatay in saaxiibadeed talo u baahan tahay ayaa tiri asli saaxiib talo ayaan ku hayaa hase yeeshee waxaan ka sii afeefanayaa in aadan iga xumaan haddii ay ku anfici weydo waxaan kuu sheegayaa in inta cunugaasi uu nool yahay ceebtu aanay weliga ka hadhay sidaa darteed waxaan intii hadalkii aanay dhammayn ayaa asli intay cunugeedii ku booday oo dhabta saaratay ku tiri ku gartay Canabey taladaad soo wado waa dil wiilkaaga ilaahay baan ka magan galay in aan noqdo gacan ku dhiigle curadkeeda disha ereygii Canab aad buu u dhibay asli waxayna intaa ku dartay oo tiri Canabey weligay hal habeen baan warkaaga yeelay waxaana igu dhacay tan iminka ay haysata maantana intii aad ra'yi fiican oo nasteexa leh ii keeni lahayd waxaad igu waaninaysaa in aan if iyo aakhiraba seego sorry aad baan uga xumahay cunugan anaa dhalay waxa ifka ku noolna isagaan ugu jecelahay doonina maayo in wax kaleba iska daaya xataa xagtin yari gaadho Canab markay aragtay in saaxiibadeed cadhaysan tahay bay ku tiri walaal asli raaliga ahaw hadal gaf ah ayaa iga soo yeedhay asli mar labaad bay intay hadalkii qaadatay ku tiri Canabey ma og tahay in dembi ka xun oo bini'aadantinimada laga galaa uusan jirin saqiir la dilo mase la socotaa in qofkii sidaa yeela adduunkana tiirka la soo taagayo aakhirana naarta tan ugu kulul uu ku waarayo Canab umay keenin asli wax dhaafsiisan dhowr qasaac oo yooga ah iyaduna kamay sugayn waayo Canab qudheedu rug joogta ah ma lahayn asli dhibaatada ugu weyn waxay kala kulantay dariskeeda oo aad moodaysay inay ka gudanayaan dambi ay ka gashay markii ay xaajiyadii ka diiday codsigoodii ahaa in asli guriga laga saaro waxay bilaabeen in ay ximiyaan oo cadaadiyaan si markay u dul qaadan weydo ay uga guurto xaafadda dariskuna waa kala jiraane waxa ugu darnaa Axmed Deere cusub iyo ciyaalkeedii asli iyada oo eegaysa danteeda ayay u dul qaadatay dhib kasta oo soo gaadhay waxaana ilaahay ugu gargaaray gabdhihii kalkaaliyayaasha ka ahaa qaybta haweenka carruurta iyo bukaan socodka eegta ilmaha asli aad bay ugu riyaaqday sida naxariista leh ee ay u xanaanaynayaan Jawaahir iyo Siciido oo mararka qaar ko daawada kasoo u fidin jiray deeq lacageed iyo dhar ay jeebkooda uga soo iibin jireen asli inkastoo ay aad u tamar darnayd haddana dantaa u run sheegtay markii ay u muuqatay in cid u adeegaysa aanay jirin sidaa darteed wax walba iyada ayaa qabsan jirtay asli waxa walaalkeed Cali Amuur ku ballamiyay dukaan uu leeyahay nin Yibro la yiraahdo hase yeeshee ma tagi jirin ilaa nafta ay u yaabto waayo waxay u turaysay walaalkeed oo ay diidanay inay kharash geliso umushii markay ka baxday ayaa asli soo gashay dukaankii Yibro waxaana dhex maray doodan iska waran asli sideeba wiilkii ku yahay ma sanadada Yibro aad baan aniga iyo curadkayguba u caafimaad qabnaa asli ay maxaa kugu dhacay oo aad iigu iman weyday ilaah baa ku keenay ee waxaan rabay in aan ku imaado oo gurigaaga soo raadsho adeer walaalkay Cali Amuur ka waran waayahan warqad ma kuu soo diray waxaan kuu raadinayay arrintaas baa ugu weyneyd Cali Amuur toddobaadkii hore ayaan warqadii ugu dambeysay ka helay wuxuuna aad uga warwarsanaa xaggaaga wuuna la socdaa in aad wiil dhashay waxaana laga yaabaa inuu toddobaadka soo socda xamar yimaado in la soo bedelana rajo weyn buu ka qabaa asli aad bay akhbaartaas ugu faraxday waxaana niyadda ka tiri ilaahu isagoo caafimaad qaba keen walaalkay Cali Amuur asli kuma ay raagin dukaankii Yibro waayo gurigeeda cidla ahaa waxayna cunugii kaga soo tagtay gabadh 12 jir ah
oo ay dhashay haweeney ay xaafadda u dhow iska barteen. Asli markii ay timid waxay gurigeedii kula kulantay Kuusey oo reer Awjaamac u adeegi jirtay oo koolkoolinaysa wiilkeedii. Waxayna isweydaarsadeen erayadan: wey iska waran Kuusey, goormaa timid? Habar yar waan nabad qabaa, markaad dhaqaaqday baan soo galay. Iiga waran ciddii hooyo, aabe iyo Aamina yar see bay ahaayeen? Wallaahi Asli ciddii 5 beri war kama hayo, waayo aniga iyo hooyo Cambaro baa istirirnay, markaana gurigii waan iskaga tegey. oo maxaad isku maagteen? Maxaan isku maagi lahayn? waad la socotay in hooyadaa weligeed ii bisbisoon jirtay, iminkana gardarro cad bay igu maagtay. waxaa dhacday in Aamina yar anigoo shaqaynaya oo mashquul ah ay iga dhuumatay, dabadeedna uu sigay baabuur guriga ilinkiisa marayay. markaa kadib habar yar Cambaro ul qaar ah bay ila fuushay, anna waan ka soo cararay. oo iminka xageed joogtaa? waxaan joogaa gurigii abtigay Colaad. waxaan doonayaa in aan bisha soo socota baadiye u ambabaxo. Asli waxaa qalbigeeda ku soo dhacay in ay weydiisato Kuusey in ay muddo cunugga la hayso, hase yeeshee waxaa ku adkayd qaabkii ay hadalka u jeedin lahayd. Kuusey markii aragtay in Asli mahadsan tahay bay ku tidhi: Asli horta yaa wax ku siiya? Ilaahay baa wax siiya, ayay igu jawaabtay. Asli iyo Kuusey oo waalidnimada kasakow rafiiq ahaan jiray waxay dhex galeen sheekooyin ku saabsan taariikho ay isla soo mareen iyo arrimo dhexdooda ah. Asli waxay ugu dambaystii weydiisatay Kuusey inay la sii joogto inta ay baadiye u ambabaxayso muddada ka horreysa. arrintaasna Kuusey waa yeeshay. taasina waxay Asli fursad u siisay in ay beledka aado, shaqana raadsato. waxay si joogto ah ula socon jirtay ogeysiisyada wargeysyada, siiba kuwa xiddigta Oktoobar lagu qoro raadiyahana laga sii daayo. maalin Jimco ah, Asli oo daydka ku cadayanaysa ayaa waxaa u timid Canab oo u sheegtay in ay hayso qorshe fiican oo aayahooda ku saabsan. waxaana dhex maray doodan: walaal Asli, waxaan hindise kuugu soo jeedin lahaa in aan isu raacno oo aan u dhoofno East Africa. saaxiib Canab, orod oo keligaa tag. haddii aad doonaysid ikhtiyaar baad leedahay. ilowse anigu meelna uma socdee, kaninkana dhaafi maayo, waayo qofna dhulkiisa hooyo looma dhaamo. Asliyey aniga iyo adigaba waji xumo waxaan ahayni xamar inooma yaal. sidaa darteed wax ka roon lama arko in aan waddan cusub oo aan laynaga aqoon tagno mooye. anigu dalkayga ka tegi maayo. wixii aan sameeyeyna waan ka toobad keenay, dib dambana ugu noqon maayo gefkii aan sameeyey mid la mid ah. waxaan doonayaa in aan dego oo shaqaysto, nin xalaal ahna guursado. hambalyo bay tiri Canab, iyadoo ka wada wallee Asliyey waa dhib badan tahay in lagu guursado. oo maxaad hambalyo ii leedahay? miyaanan heli karin nin xalaal ah oo i aroosa? saaxiib Asli, runta haddii laga hadlayo aad bay u dhib badnaan doontaa sidii aad nin ku heli lahayd, waayo naagaha garoobta ah iyadoo awalba suuqu ka xumaa ayaa misana adiga ay kuu dheer tahay cunug aan aabe lahayn oo aad haysatid. inkastoo Canabay hadalkaaga wax ka jiraan, misana waxaa la yidhi waan gaajaysanahay, bakhtiga looma cuno. anigu ma quusan, waxaan aaminsanahay in aan awoodi karo dib u dhisidda noloshayda. hase yeeshee haddaad baxaysid, nabadgelyo baan ku leeyahay. Asliyey, markii aan tago East Africa waxaan kuu soo diri doonaa lacag iyo warqad. haddii aad ila tashan lahayd cag maad nuuxiseen, waayo haddii aad maqli lahayd canshuurta iyo cagajuglaynta lagu hayo dadka dhulkooda ka taga waad joogi lahayd. midda kale, qofku markuu dalkiisa ka tagayo waa inuu yaqaanaa farsamo uu la shir tago. Canab waxay u sheegtay saaxiibadeed Asli in go'aankaasu yahay mid ka soo go'ay oo aanay marnaba ka noqonayn. waxayna intaa ku dartay in ay ballan la leedahay baabuur 2 casho dabadeed oo ambabixi doona magaalada Nairobi. Canab waa ay dhooftay, waxayna sii raacday baabuur uu leeyahay nin la yiraahdo Erday oo Kismaayo sii marayay, kadibna u sii gudbayay Nairobi. ilaa boosteejadana Asli baa la tagtay. Asli markii ay Canab sagootisay waxay soo martay gurigii Faadumo, waxayna iswarsadeen hadalladan: eedda Faadumo, iska waran, ilmuhu see ku yihiin? waan caafimaad qabnaa.
maxaa kugu dhacay Asliye? Wajigaaga daal baa ka muuqdee. Eedo, tii canab ahayd oo East Africa u dhoofaysa ayaan alaab la sii xamaalay. Maanta oo dhanna la wareegayay waanay dhooftay. Asliye ma la socotaa in canab uur sidaadii oo kale yeelatay? Yaa uur yeelatay waa yaab. Wallaahi eedo, waxba imaay sheegin, laakiin si ayay u niyad xumayd. Habaryarey yaa adiga arrintaa kula socodsiiyey. Haddaba saaxiibtinimadeennu waa been haddiiba ay arrintaa kaa qarisay. Waana hubaal. Waxaana ii sheegtay gabadh ay daris yihiin oo aan cisbitaalka ka wada shaqayno oo ay sirta ku qarsan jirtay si ay daawo uga hesho. Sorry, aad baan uga xumahay dhibaatada saaxiibtay qabsatay iyo rafaadka sugaya. Maxayse iigu sheegi weyday talow? Waayo aragnimo ayaan siin lahaaye. Asli waxay Faadumo u sheegtay in ay filayso dhowaan shaqo in ay hesho. Waxayna tiri, eedo Faadumoy, waxaan kuugu abaalgudo adduunyada intaan joogo garan maayo. Cidna ma qiimayn karto ihsaankii weynaa ee aad ii samaysay. La'aantaadana waxaan rumaysanahay in aan aniga iyo wiilkayguba mar hore aakhiro u hoyan lahayn. Waan la socdaa dhibaatada kaa soo gaadhay daryeelkayga. Waxba ma aha. Waxaan ballan kaaga qaadayaa inaanan noqon doonin nacas hilmaanta abaalkii loo galay. Faadumo waxaa ku duxay erayadii Asli oo ka soo baxayay qalbi saafi ah iyo niyad mukhlisa. Waxayna tiri, Asliye, aniga ilama aha in aan wax weyn kuu qabtay. Welibana wax badan oo aan kula damacsanaa ayaa awooddu ii diiday. Oo intaa ka badan ma naftaad ii hori lahayd? Asli intay labada dhaban Faadumo ka dhunkatay bay tiri, eedo nabadgeliyo, gurigii baan ku sii cararayaa. Asli intay dariiqa soo socotay waxay la kulantay gabadh magaceeda Muxibo la yiraahdo oo ay dugsiga macallin Jaamac wada dhigan jireen. Waxayna u sheegtay inay soo ogaatay in madbacadda qaranku qaadanayso 20 qof oo qaba shahaadada dugsiga dhexe. Asli oo u qaadatay in bishaaro baryaha ay maqasho tii ugu wanaagsanayd ay maanta la kulantay ayaa tiri, Allah walaalay ma hubtaa. Asli iyo Muxibo doodan baa dhex martay. Muxibo waxaan ka cabsanayaa in dad badani shaqadaas soo weydiistaan oo aan waayo. Sidee baad u weynaysaa sawdigii imtixaanka fasalka 8aad lambarka 3aad galay maaha? Walaalay sideedii hore ma yihi. Waayahan dambe hami iyo fakar ayaa wax kasta ii ilowsiiyey. Waxba maaha walaal. Duruustii gaar ahaan xisaabaadkii dib ugu noqo. Muxibo, waan maqlay inaad dugsiga sare gashay. Runtii weligay kuma fakarin in aan shaqo galo anigoo aan jaamacad ka bixin. Hase yeeshee tani waa seeto. Asli wuxuu maaha oo waad isku wadi kartaa shaqada iyo waxbarashada. Wax kastana waxay u baahan yihiin niyad adag iyo dadaal. Waa runta. Hase yeeshee aad bay u dhib badan tahay. Anigase intii ay doontahay igu qaadatay waxaan rajaynayaa in aan mar jaamacad ka qalin jabiyo. Asli sidii Muxibo uga sheekeysanaysay bay aragtay iyadoo ay waqti dambe tahay. Markaasay tiri, Allah Muxibo, nabadgeliyo, gurigii baa cidlo iga ahayd. Ilaa saakana wiilkaygii waan ka maqnaay. Asli oo dariiqa u dhaxeeya Hodan iyo Waabari goynaysa ayaa waxaa la kulmay inaan gurigiisii oo 2 tilaabo ah ka soo carraabay. Deeto Asli ayuu la qabsaday wuxuuna ku yidhi, walaal iga raalli ahow, waxaan markii hore ku malaynayay gabadh aan aqaan. Hase yeeshee mar haddii aan ku joojiyey waa lama huraan bay ila tahay inaan isbaranno. Aniga waxaa la yiraahdaa Xarbi, waxaan deganahay gurigaas darishada cagaaran. Magacayga waxaa la yiraahdaa Asli. Asli ayo, oo maxaad magaca aabahay ka rabtaa? Adiguba Xarbi oo keliya ayaad ii sheegtay. Iga raalli ahow, waxaan kaa ilaabay magac lagama miskiin ahee aabahay oo la yiraahdo Jaamac. Asli waa qososhay waxayna Xarbi u sheegtay in aabaheedna Jaamac la yiraahdo. Xarbi wuxuu qardajeexaba ugu dambeyntii wuxuu Asli ka codsaday in ay isbartaan. Waxaana dhex maray doodan. Intaasi kadib maxaa dhacay? La socod daawade qaybteena xigta qaybteena. Sheekadana waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag.